gobolka mudug oo aan ragga mudakarkii dibadda u bixi karin wuxuu ku soo celiyay meel nabada laascaanood waxaa ku badan dadkii Soomaaliland ka soo haajiray oo ku noolaan kari waayay ba dadka maamulka ku jira u badan marka qayladii ay xagga ka shubi jireen bay ka shubayaan yaa ula jeedaa dadkaas macnaha dadkii laascaanood dadkeedii waa jooga oo bismillahir rahmaanir rahiim diyaaradda u jeedid oo shabaabka dusha ka saaran yahay ba maanta baraha bulshada lagu soo yaacay CBBD iyo wax magaratadii iyo kuwii dowladda Soomaaliya waxay soo iibsatay diyaaradaha noocan waxa arinta ay salka ku hayso iyo sababta waxa loo goleeyay waa ku dul istaagay muuqaalka qaybkeeda wax badan aad ogeed ba qaybta dambe kugu sheegi doona ninka hadda hadlayay ninkan horta ninkan ba tusaale ka siinaya ninkan waa gordhob dani dhaqdo weey ma tuuro uu dhaqdaa uu la laabta jeeb ku gashtaa markay culays u dareemo culayska siga dajiya waxa ay ku nafisaa ninkan kelmad kasto ku dhaho dani ba ku yiri wuxuu caayirey mudug buu caayay annaga Ciise Maxamuud soo nooga dhaansanayay waa isagii ba markii dambe isagii baa nacay usaga hayday annaga waxa soo haray jaamac siyaadka uu ka dhashayna waa ka dhaansan hal tusaale adiga daawanaya tusaale ku siinaya maanta adoo baadiye iska jooga baadiye adoo jooga baaninkan ku yimi adoo baadiye jooga waxa ku yimi Faad Blue Makeup ku yimi tusaale alashaan ninkan noociisa Faad Blue Makeup waa taqaanaa wuxuu ku sheegtay samsam raage assalaamu alaykum adeer qurbaan ka yimid dibadda ka yimid ano samsam ali dhaano uu ku yiri ma aaminaysa waxaan samsam ma ahay Faad buu ahaan jiray ma aaminaysid ninkan jaac siyaad horta ma aaminaysid xalay wuxuu sheegay ragga SSC khaatimo arinta mudug oo imaanaya reemuduga xalay wuxuu sheegay arinta SSC khaatimo ragga jooga hadda ee madaxda ka inay ka yimaadeen baalki ilaahay baa kugu dhaaray ragga SSC khaatimo horbaday timacado jaac siyaada kamid ah timacada ma Puntland baa laga soo doortay mise Soomaaliland bukay waxa marka dani u soo dhiibaan ninkan iyo firdhiya wada dhashayna ma aaminaysido waa arinta hadda ku sheegay Faad Blue Makeup ahaan jiray samsam hadda ma aaminaysid ninkan iyo firdhiya wada dhashayna ma aaminaysid ninkan jacsiyaadana ma aaminaysid waxaani waa warab dhalay weey miirun bu soo galnaa danigu soo galaya soo kan bu soo galayaa meel uu ka waabanay jirin erey uu ka xuyaan waa cabtow ninkan 12 kaamay ka dhan saas u dhamaya sideen uu soo galaya soo indha galka ka saarayo wuxuu ka xishoonayo wuxuu ka baqay mid jirin bu soo galaya adigu ninkan dani ba arinta soo dhii waxa lagu qarinaya ninkan buuqiisa ma iidaan fahmin idinku faham badan dani kama haysataan war Yacquub Saad jaamacadiisu dani ka bax war ninkaas waa ardaygii war dani waxaan social media ala baray war qaabka culayska la isaga dajiyo ala baray waa arintii shirki 3 maalin horta saxaafad Puntland ma jirto saxaafad Puntland oo mid Yacquub aan ahayn wallahi billahi tala oo hada boqol looga tagaysan jirin hadda ba ku sheegay 3-4 maalin koor ba waxaan ku sheegay in ero iyo ay kulmeen dani xalaad maqlays warbaahin aan loo soo qoray dani iyo ero kulmay ma kor kulanka soo dhamaaday oo dhulbaanta loo tashtay oo SSC khaatimo leeyahay agaha la qabto oo ra'iisul wasaare Xamza laga dhaansaday leeyiri oo si kale Xasan Maxamuud uma adkaan karno woogiy Xasan insa ka adkaanay ba xalay warbaahinta qoraysaa oo dani iyo ero kulmay meedii sheegay inta war ay arinta la hor ba idin sheegay shirka hadda Nairobi ka dhacay ba idin sheegay dani naagtiisuna shirkad caanaha leedahay dad dhul isku haystaan ba idin sheegay way soo baxday waxaan xalay u darneed waxa idin sheegay in gabdhaha reer Puntland inta la wax waxeeyo kadibna la taariibiyo waa run qof aan shilin haysan hal santi oo diyaarad raacay adu aqliye ku aqbalaysa bal qof aan waaridkiisa xataa ogeyn oo iskool ugu maqan yahay oo aad maqlaysa gabadha Algeria aaday gabadheeda say u duush yaa diyaaradda saaray yaa tigidhka u gooyay lacag ma haysan yaa fiisa siiyay waxa waaridku waxa soo dhan oo qafl albaabay baa maaga lagu qaadanay waxa soo dhan dawladda ka shaqeynaysa halo dhaga Yacquub Saad baa gabdha caayay Yacquub Saad baa gabdha saay war gabdha anu ninka xumaanta ku sameeyay taariibay ayaan ma caayin anu war caadi oo jira haday dacar ka qaraata ki sheega saan Allah ba ugu dhawaanay anu saas aan aaminsanahay inaan Ilaahay ba ugu dhawaanay warka runta aan aaminsanahay waxa dhacday marka inta war ay idin sheegay run buu ahaa waxa dhacday dani inaan caayamahay been kama sheego wallahi billahi oo tallahi beentan anu ma aqaan anu runta ka sheegay dani marka ninkan erey kasto uu dhaho hadda SSC khaatimatina dani ba ku yiri walaalle haddii nimanka Cumar Maxamuud oo xalay oo dhan warkii ka seexan waayay oo saaka aroortii wicitaan ugu bilaabay abtiyo u soo jawaab eegan ay ugu dhalay Hindiga abtiyo waagu anaga nacay jiray soo idinku u qori jiray sax weeye ma sha Allah ku soco kaale arag soo adigu u qori jiray
ninkan aqbal dhagax iyo ninka kugu soo tuuray yaa la qabsadaa de ninka soo tuuraa la qabsadaa ninkan deni baa kugu soo tuuray deni wuxuu aaminsan yahay cumar maxamuud inay xafaayado waaweyn xirnaayeen cumar maxamuud inay dhiiqada dhex sexdaan cumar gaalkacyadii ku yimi ha ii niikirin idin yiri intaas idinkaa deni iska jecel de idinkoo adduunka moogta jacaylkeena ceebka wax u dhexeeya male war haddaa xataa ciise maxamuud wax ku haysataan waxa ciise maxamuud aad ka rabtaan aan ciise maxamuud ka diidan tihin deni inama siin karo kursigan ciise maxamuud baa iskale dhiig buuna ku daadinaya ama deni ha ku dilo ama ciddii kale kasoo hor istaagta ha ku dilo idinka marka puntland baa idin muhiim ah deegaankiina idin dhisma idin muhiim ah hindigaan hindigu dhala inaa u jawaabtaan muhiim idin maaha ninka idinku soo diray oo biilka ku siiya inaa u jawaabtaan wey weli xaqiiqda marta weli niikaa degantiin aftiyaalo runta isu sheega oo maanta tu mucaarad haafaafaatiina sidii ninka ragga munaafaqada iska daayo sidii nin ragga wax u diida ama dani suu sallaankeeda kaga dhigan idinkugu tumanaya iskaga dulqaata laakiin ninkan adigu waxba dhulbaantaana waa u caay ninkan waa qashin dhalay wey ninkani waa ii sheeg dani baa intuu yiri aaminsan adigu dani soo kulama socotin in si khaatuma la xuryaamiyo soo kulama socoto maxaa ninkan kala yaabaysaa marka adaaba dani haaf kula socday anigu dani naarta jannada du dhow halkaas ma raacayo wax aan dani kula socdo ma jirto aan ahayn hal mid ilaahay waa hal dani haa ilaahay waa hal calanka puntland du dhow calanka puntland ma ahan lay kii soomaaliya wey hadduu isaga igu dhow calanka puntland ma ahan lay anigu taas anigu mucaarad u aqaana laakiin haaf hooley afti hooley iska daa ninkan masiinka waxbaa caay ninkan dani baa ku adeegta inta dani idin qabay caloosheedi kugu jiray hortiina haynikinina ka dhigi jiray intii kale u qarsooneedna ninkaan xalay idin yiri marka ama aqbala xaqiiqda ama iska daay hada ninka ragga waa kii wax aqbala oo ka socda laakiin anigu gocasheedi kuma aqoon iyo inaa wax qarisaan iyo niman waxaan diga anigu calooshiina ka soo bax waa sababta waxba u qarin waxaas laa nimanka abtiyaasha waa kaa horreeya waxba qarin maayaan abtiyaal ashun ku aadibay wareega adeegu dhala iska daayeen dani ka dhaansada taasaa daawadeen ku jirta idinka ciise maxamuudna waa isku kiin mashquuliyey wuxuuna idinka idinku leeyahay idinkaa idin dhisaya walaale kursi dani cid uu dhisi kara male laba teeran buu qaatay hada wasalaan ciise maxamuud iyo danina waa is arkayaan hadda adigu ciise maxamuud wax ku haysato abtigay waa hal talaan ku siinaya horta bal ciise maxamuud dani la dil markaa kadib ciise yuu ku waayin haddaa nin tahay kaarahaaga markaa soo qaada tiraa anigii ciise kursiga waa inoo dhax haddaarti markaa dheh ama anaa iskale ciise wixiisii u ka tanaasulay anu ma tanaasulay markaas haddaarti dheh laakiin hadda ku sheegay ciise maxamuud shalayna ma tanaasulin weligiisna tanaasuli maayo kursiga dani ku fadhiyana kursi masaajid yaallama waa kursi dhiig ku daadanaya wey haddaad dhiig diyaar u tahay soo gal safka haddaad kursi dhiig diyaar u ahayna oo aad rag ilma adeer tahay inaad laysa aad diyaar u ahayna abtiyo dadka ha wareerisa ummadda ku xirtay khayr allah ku siiye waxrunta ku sheegaa weyda dhulba hadda waa wareerisay ciisheeg baalkii warsangeli waa wareerisay leelkasa waa wareerisay dani waa wareerisay ummaddii adaa is wareeriyey dhiiqa waxaana dhex ridaa male ninkaa masiinka iska daa dagaalka si toosa u soo gal hada wasalaam ninka annagaa iska qabanayna ssc khaatuma arrintuu ka sheegana wuxuu ku qarinayaa shirkii annagu maanta haddaan majarteennahay si caadi a u saqiir mana saqiiri mana kabiirin dani baana saqiiriyey isaaq baa waxaan ka baryeennaa inuu ra-iisul wasaare soomaaliya nala raadiyo isaaq baa waxaan naga dhaadhicinayaa ssc khaatumo inaan curyaamino war ma nin inta aniga ii yimaado hawiye ah ama nin isaaq intuu ii yimaado baa nin in adeerka ila xaman kara dee silbi way wasila waxaa la ninka soo ku yaqaan baa walaasha kufsada baa la dee gabadha ma aadan kiibu ka adiga kaa waay wiiga dhaansan lah hadda wixii buu naga waay uu naga baarbaaray uma walaa yuusan dhulbaanta ku fakareen inuu yidhaahdo maamulkooda ila burburiye isaaq see kula burburiyaa waa maamul saddexaadoo daaradu soo kordha adigu erer samaalaa tahay hadhow meesha waxbaa la qaybsanayaa yaa gaadaysa ninkii dhihi lahaa meesha ma joogo waayo waxaan dul istaagaya diyaaradahan dul istaagaya horta tiimka mulaaxa la shaqeeya iyo systemkaasoo dhan ku xeeran waa ardadii yacquub siyaad wey laakiin anigu noocan waxba uma sheegi jirin hadda iyagu wax u sheegaan dowladda soomaaliya diyaarad laga qabsaday al-shabaab baa ka qabsatay hadda waa nimankii aniga shalay ilahay yacquub siyaad waa daacish u fiirso waxaan inay al-shabaab dhalan yihiin oo ummadda soomaaliyeed ka degi la'dahay oo ciqdi iyo cunfi iyo xumaan ay ka buuxdo xataa caqligii ay beeleen waa al-shabaab bay xun u yihiin mikrofon oo propaganda u samaynaya iyagoo ku qarinaya diyaaradaha la siiyey ee dowladda soomaaliya soo iibsatay qaarna discounti yaraa lagu siiyey qaarna diyaaradaha soo iibsatay dowladda soomaaliya waayahay marka dowladda soomaaliyeed lacagta ay diyaaradda kala soo baxayso waa dhaqaalihii dalka waa dhaqaalihii shacabka dalkan rasas iyo dhaqaalu leeyahay xoolahani ma abgaal bay u haraya
ورحولها أنا موعيس له وهريان ورحولها أنا مهوية وهريان ورانك عقلي حقنا قاعد وريلاهي عقلي إنه يسود دتش ربي الرحمن عقلي وأنا قتري وريكان شالي مركو فرماج حفيز كيماني عبد الله يوسف يا شيخ شريف يا حسن شيخ شقاعي قبتين بو فرماج حفيز كويمي إذا ما ديار سب ويمي تركي ودك تشوف ويمي حالنا أو باش عالم كده جنتها فرماج ويمي الحمر أو شباب لا يسار جوهري لقوا سبعسري ويمي سو ما عندي ما بين ما كشيء لكن أنت يا سوقبتي ركسو معلم أنا قال نحسوا هوية وسوقبتي نيك رجع اللي أنت وراك والله شيء ويا مركا نيك ما أنت حسن الدنت صباري إنه عفيه ما هوية ودنتك عفيه بس دنت هوية الأولى بس ويا مركا ورباه أنت نوع عرضان أو شيء ديارضان أو كع نوع عقوماتك ومجا عود اللي تي بقول لبعتن إيه السجال بقول لبعتن إيه السجال ودلك التركي اللي جو فرصبيه بما أنت واحد عنت لوجلي باش شرفتي عسال هوية أما خاصة باش اللي يهدو هراب هدي اللي هوس لو قد أدقو نمانكي مدلود هدي هوس لو قد أدقو نمانكي مقع وين أي أبقل هدي أبقل هالك الله ودقاق نمانكي السياسيين تا الدل كان يديان كواحد بدوسو قبن جري مقع عود اللي أوري جري وعيس لعد بعد ديارضان الدولة التركية با دقالة نحمري يهشيسيو دلك وعيس له أو نحمري بعد ديارضان الدولة التركية ويحكوسي الصومالية ولا ريال ورالك عن دي هاينو وإذا كجي ماني يجيس كأفريقيا وح أي شيء يعني إن ديارضان وطن أفريقيا هيستوي سجرين مركي لا جربوا باشا وعيس لعده وهوري وهذا وجدين باشا وعيس لعده أو وطنك وعيس لعده دين تكعب في السي هوري وهذا وجدين وعيس لعده أو لا ديالله يا الشباب هوري وهذا وجدين وعيس لعده أو أنا قبتينكي هبك كقاضي ذلك وعيس لعده سازرتان وريوح وشيء صراحة سازرتان ما واي رئيس وزاري ودلك جوجا بقول الحلبان ودارو ودلك جوجا ninka hawiye bari u tagaya dadkan xukumileed way dadkan waxba kala dhaxeeya Puntland oo kale oodan oo wixii loo keenay ka sameysay oo doorasho been ah ka qabatay Jubaland doorasho been ah ka qabatay baad wali inuu xayawaan yahay waa u sameeyay lisan sax leedahay doorashada Xasan Sheekh Maxamuud ha qabto haduu sa qaban war maxaa adiga oo tuug waxa qofka dhigi karta marka adigu tuug ahayn laakiin adoo tuug ah qof ma oran kartid tuug baata tuug dhalay iyo dhashiis oo Ilaahay rasuulka ka furtay وهم الله حي الدنيا وين حصلنا وحلال أنا بدين شيء حلال وي سوي حلال كياي سو هل اللي بان غيرك سو بما لا وجه للدورت أود إلهي واكا لا تقنطوا من رحمة الله إلهي يسمعها يؤتي ملك من تشاء وتؤتي ملك من تشاء وتحب من تشاء إلهي ما قفك الدور حسي إلهي بسي مركا ما تدوي هوية يا ديار الله على الشباب حتى معارض إنه سجرين بكل شيء وحنا ميكروفون على الشباب لو يهي ولم يعرف الديار لها ما طلع وضوضه دولة ده صومالي عيد كتاجرس ما جرته ضدك إيمانك وكتجي قيم متجره إلهي كعبس متجره ننتو الكي عايها دار ترى وفريد رئيس وزراء حمزة مدحوينها صوماليا نقرية أنا نواكاوي وحرية ما قرصان واي نين كنت حمل wax qarsanaya la moodo way jiraan nin daaro ay reerkiisa jecel laakiin way jiraan dhibaato ku ahayn oo dalka ay la dhaxeeyo wiilka Soomaaliya waa Yaqub Saad xalaal bu kulay ma aha munaafiq laakiin aniga munaafiqada laga rabay laga heli maayo Xamza anigu isku dabeecad baan dhoobada in isku meel laga qaado nin daacadnimadan daacadnimeen goodo markii hadii ay khiyaano kartaa ilaahay waa khiyaano kartaa dadka aniga daawanay mid aniga cilmi badnayn kuma jiro mid aniga garaad weyn kuma jiro mid aan iisheeg wax fahansanayn kuma jiro laakiin inta aqoonteeda anigu fahansanahay baan dadka u sheegaa waxa meel kale ka keenana ma jirto iyo warkii marka xaqiiqda ay taagan waxa xaqiiqayna maalintaas iska shaqo tagaayo alxamdulillah rabbil caalamiin suuqay kala iska